maxaad inoodan lahayd inoogu bidxigsi maxaad jeclaan lahayd runtii maxay hayday horta dhanka jacaylka baan jeclaan lahayn inaad inoogu xigsiisid way jacaylka ku xigsiin doona inkastoo isla halaba tixooda jacayl akhri haddii waqtigu inoo saamaxana waa si fiican marka waxaan soo horreysiin lahaa tix la yidhaahdo ulakac waa qiso jacayl oo dhaba way ahayd oo nin asxaabta ka mida ku dhacday markaa qisadaasi muddo hore dhacday aniga 2016 ayaa layga warramay qisada haddaynu isku soo duuduubna nin baa muddo gabadh 3 sano iyo xogaaya la socday 3 sano iyo kadib ayuu ku ballamay inay isguursadeen hawshii guurkoodii iyagoo ku ballansan ayaa waxa soo ayuu ku yiri markaan meherad yar buu markaa ka shaqayn jiray meheradan yar waan ka tagayaa meherad baan furanaya aduu markaa isku soo duubno meherada markaan furta buu ku yiri wixii igu xigay ee aan hawleen galaya way adiga inaan ku guursado waayay ku tiri markuu ninkii meheradii oo hawsheedii galay uu dhaxda marinayo ayuu habeenada kamid ah telefoonkeeda garaacay walaga qaban waayay sidoo garaacay adigu habeenkaas marna mashquul buu ahaa marna walaga qaban waayay waaga sidii ninkii ugu bariyay subaxiina meheradii hawshii uu galay wuxuu haddana garaacay barqadii uu garaacay uu dhacay telefoonkii walaga qaban waayay xilli dambe bay inaan ku tiri walaal waxa markaa gabadha loo jiro hodan waa la guursaday bay ku tiri markaa habeen hore kale ula hadlay laakiin xalay oo kaliya ayaanu la hadlo xalayna waa taa ay ka qaban weyday dabadeedna wuu qaadan waayay waa la guursaday inantay waxa soo axdiye wada galeen dabadeedna wuxuu ku yiraahday iska guursaday marka kaftan buu haystaa ayde ha bal adigu igu dhiibyadii bay ugu dhiibtay adigu xogaa ninkii de iska maaweelisa walaal calaf bayna kala kaxeeyay waxbayna kala helay waxbay ku akhriday ninkii yaraa miskiinka wuxuu yiri telefoonka dhigta ugu hayay calafa yaad u hayay ayaan halkii ka dhacay buu bartaan fadhiyay wala ila carri buu ila dhakhtar baligay ha dhakhtarkii markii la geeyay wuxuu yiri waxaan soo baraarugay ninka uu sheegay dhakhtarka haysta magaciisa Abubakar baa la oran jiray buu markaa waxaan soo baraarugay uu tiyo faleenbooyin lagu xidhay dawadii irbadii oof tan iyo kiniinkii waxna la siinayo dabadeedna markaan soo kacay ayaan yiri waariyaan wariga gooyay falan badan iyo waxaan xanuunsaasi ma hayee dabadeedna waxa lagu yiri waxa ku haysa oof markaa u kaadi mar oo fiima haysa adigu ala kulli xaal ninkii halkii buu adigu maanta dhakhtarkii uu ka soo baxay noloshiisii ninkii marba marka ka dambaysa hoos u dhac baa ku imanay meeradii xooy ka baabaday jaamacadu dhigin jiray uu ka baxay aakhirkii uu tahriibay adigu muddo hal sano bada wuxuu ku jiray dhaxdu uu ku rafaaday Jarmal buu gaaray aniga 2016 markuu ii warramay Jarmal buu igu soo warramay markaa waxyaabay ugu badnaayay ayaga yaabi wuxuu ahaa ilaa al'aan kaas yiri tixda wala kacba la markaa halka magaca ka wada too kale ilaa ay maka wuuri waxaan ifka arko ama maqlo iyadaan ugu jeclay muddada markaas gabadhi miya ha gabadhi wala guursan ma ilaabin hatta ilaahay ma xayda kuma galay ha ma iloobi 4 sano ka soo wareegtay markuu ii warramay gabadha 3 caruur bay leedahay bi guri marka ninkii walaada ninka gabadha guursaday wuxuu jabka ugu weyn ka dhacay ninka gabadha guursaday iyo ninkan laga guursaday laba nin oo saaxiib ah ahaan isku meheradna joog jira markaas way sida doonta waxa u dhacday calafka malaha kala kaxeey adu ala kulli xaal ninkaas ayaan ku xigsiin lahaa tixdiisa tixda waxa la yiraahdaa ulakac 2016 weeye dhacdooyinkii ninka ku dhacay meelihii ugu saameynta badnaa oo tixda ku soo ururaysa soo aragtidoo qura afar wiil kalsoonida farxad kuma ahaado istiraxa kuma lado soo kulkaan ku aaminay adna hodan ayaan qura asaagay ma cugan oo anigana imaad nicin waa saamir ilaahay ooridii walaalkay ina aad ahaatay adiga ayaanka waa saarami kugu maqan cishqigaad ilduuftee alla uu tinta aan qabo kale xulashada balse aad ilowdide ayaan qura jacaylkii erayadan ku dhihi jiray dib ma yara awaasho ilmo qori ma ka timid adna heshay ilhaamkii anna umalka aan qabo arladaba ka tagayo ku ilaawi waaye talo godobta aakhiro intiibad ka galaysa afkoobaad si caashaqo uu ka xaaja adagii haddii uu ilaaqiyo kaagii ahaa waxaan adi lagugu aaminin aniguna sidii baan wacadkaan adkayn jiray ugu uurfayooboon layga ka afduubay weli waan se ololaa mana aarsan karayo ogi inaad afiya tahay oo rixaas la hoonagi ilaahay hadaaye ubadkaagu waa dhowr helay oo akhbaaraha ogeysiiyay laabtee samir baan abdalahayn inaad taalug baadiyo beero ubax leh iyo doog maqlay oo ayaamuhu arrinkaa ay siiyee anna heedha awdalan oo maskaan dhex joogiyo ma og tahay awaarahan awadaa ku noolaha
anfaciga ma daadego una soomay awga ilmaduna sidii uun ayay iga qubata 4 sano haddii aan indhahaygu kuba qaban caashaqaaga awgii naftu way laalasha sidan kuwa ahaan jiray haddii aan yar eegana aqalkiina jeerkan adigoon ogsoonayn aan hortiisa iman jiray ayuun baan xusuusta wuxuu guuri bariga markay iga qabowda telefoonka hortiisa iman jiray wuxuu la dabadna habeenkaas oo meelaha ma taagnaad waxa noqon jiray istiraah ala nafsi sidii nin la kulmayna intii gurigiisa iyo eereed soo gaadhay sidan kuwa ahaan jiray haddii aan yar eegana aqalkiina jeerkan adigoon ogsoonayn aan hortiisa iman jiray ayuun baan xusuusta waxa uurku taalada igu sii olkomiya waa subaxayaantii meherkiya arooska abshirtiisu way timid iridayda goortu imid een warkaa helay adna aan ku soo wacay ladhkad igu abuurtaa adhaxda iga jabiyo anigoon itaal hayn kolkuu ehelku ii baxay ku ilfuray sariirtii isbitaalkan jiifo tiyo dawadii ooftiyo layla dhacay irbadihii ogaadoo ku toosoo iga daa haddaan idhi lala yaab hortaydii uduluubka aan galay asaraarkan taagnahay adaa igu wacanoo ma ogida ayaanta axamaysi nolosha waa aahda feedhaha waa ololka laabtay waxa umalka taahee show abuurka soo tufay cishqigu itaalsaday oo awood leh bay helay waa eebay igu taal waran oofta igu muday miyaan ooli karayaa alwadkiiyo baroortaa iga saaray ummadan ku dhexlaayaanka waxse aan ilaaweyn wuxuu sheegay waxaan ilooweyn weligii markaa waxaas waxa weeyaan bilmatal isagoo xaggaa jooga ayuu la soo hadlaa buu guriyadoo xaas leh dabadeedna markaan waraysto waxoogaa ii waranto ayay gu tiraa walaal buu guri walaal weli miyaanad guursan markaa isagana ma oga jacaylka weli heerku u taagan yahay waxse aan ilaaweyn ilaaqdii haweenkiyo ereyada xiqdiga dhala ula kaca badheerhka anoo liicay awga afxumada i gaadhee maxaan eel qarsooniyo adiyad dumar tirsanaya sida eeri dhabankan weli kuugu ololaa sida hooyo ubadkeeda ayaan kuu ilaashaa sida ugaxda diinkan isha kugu barbaarsha sow alalagtaadii sacabkiiyo arooska utintaan ka qaadiyo urugtii lamaan goyn kol baan dunida eerto ajashaydu sigatee sow calafku aadmiga inuu kala irdhayn karo yaqiinu ma ogaano waxaan aha islaam jire iimaanku ima celin nafsi eebba kuma bado asaagaha hoos marin anna kuma inkaarina istareex ku noolow aayahaagu dheeraa udubkaa ma liicsamo ilaahayna kaahay waxadeedda weliga oorikaadu noqotee ku ilaashanaayana indhihiisu ruuxay ka helaan iftiin noqo naftu waa ammaano lama siin addoommaha abidkeed mid waartee dib haddaanad ii arag ogsoonow ku saamaxay adna eed hay qabin intaasay kusoo gabagaboodaatee ula kac intaasay ku gabagabooday su-aalan ku weydiiyo maxay ahaydeen xigmaawi waxaad iga warantaa jacaylka maxay ahaydee dumarka iyo ragga keeba horta u daran su-aashaasi horta waa su-aal adag soomaalida marka ay fahmaayso waxay tiri ninba meesha bugtaa isagay balbashaa ma garanaysaa ragga iyo dumarka dee waa horta ninba sidii loo helo laakiin horta dadka qaar baa mar haddii jacayl daraaddii uu cilmi u dhintay dee cawralina way u dhimatay bay dhahdeen moogta oo iyaduna gabadhahay markaa dumarka inta badan taariikhdu ma xustee rag bay xustaa moogtahay markaa dumarka laftarkoodu way jiraan oo dumar taariikhda gale jacayl dee la sheegay inay u dhinteen way jiraan laakiin anigu siib ahaan shakhsiyan waxaan aaminsanahay jacaylka dumarka iyo ragga cidda usii nugul baad weydiisay soo maha dumarkaa horta u nugul laakiin way ka bogsan karaan laakiin raggu kama bogsan karaan markaasaas intaas isdheeriyin dumarkaa u nugul way ka bogsan karaan laakiin ragga inaanay ka bogsan baa laga yaabaa markaasaasaan odhan karaa markaa inay raggu kaga dhibaato badan yihin laakiin nuglaantana aan dumarka siinaya waxaad leedahay ragga in badan bay u adkaysan karaan haddii maxaa heeda uu jacayl ku dhaco raggu ma adkaysi maaha uurku taallada iyo murugada iyo dhibta ka soo gaadhay bahalkaasaa laga yaabaa weligii inay noloshiisa ay saameyn ku lahaato laakiin dumarka uu nuglaan way u nugul yihiin laakiin waxaa laga yaabaa inay iloobaan aad baad mahadsan tahay haddaynu ula kac intaasi kaga nimaadno iyo maxaa heeda qisadaasi runtii horta dad badan oo jacayl qaba ayay si gooniya u taabanaysaa waana maxaa heeda qisa runtii maxaa heeday aad u maxaa heeday